sanadii 2012 ayay ahayd markii la isla gartay in marka la gaaro sanadka 2016 shacabka Soomaaliyeed ay u dareeraan u codeynta si xor ah ama doorasho qof iyo codkii ay ka dhacaan guud ahaan dalka Soomaaliya balse taa muran iyo marmarsiyo siyaasadeed oo aan marag u baahnayn u noqotay dawladda Soomaaliya oo waqtiga soo hoos galay iyo amniga dalka oo ku taagan caga caajisan sida la tilmaamay isku day badan ay sameysay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay ka dhawaajisay kadib kulan maalmo qaatay ay wada yeesheen madaxda maamul goboleedyada dalka kuwa oo isku raacay badankoodu in dalka ay ka dhacaan doorashooyin dadban oo gaaraya ilaa heer madaxweyne hadalkaas ayaa shacabka Soomaaliyeed ku koobay dhakafaar iyo u dhagataagid sida ay wax u dhici doonaan madasha ayaa go'aamisay in golaha baarlamaanka tobanaad ku yimaadaan hab ka duwan baarlamaankii sagaalaad oo haatan waqtiga ka idlaaday isla markaana xildhibaanadaasi ay ku yimaadaan 135 oday soo dooratay jadwalkan ayaa haatan si aad uga gadisan midkii hore iyadoo madashu ay sheegtay in golaha shacabka cusub lagu soo dooranayo laba hab ee kala ah aqalka sare iyo aqalka hoose iyadoo aqalka sare laga dhigay tiro senator ee gaaraya 54 kursi inkastoo dhawaan kulan Muqdisho ay ku yeesheen madashu kuraas kordhin ay ku sameeyeen aqalka sare laguna daray 18 kursi wadarta guud ee aqalka sarena ay noqotay 72 senator waxaana senataradaasi soo xulay madaxweynayaasha maamul goboleedyada dalka halka aqalka hoose tirada xildhibaanada laga dhigay 275 mudane kuwa oo soo dooranaya erga gaaraysa 14,025 waxaana ergada laftoodu soo doortay 135 oday dhaqameed waxba kama bedelna tirada xildhibaanadii sagaalaad marka loo eego aqalka hoose tirada xildhibaanada kaliya saami qaybsiga haweenka oo la kordhiyay lagana dhigay 30% sidoo kalena halka xildhibaan afti ay u qaadeen 51 ergey jadwalka ayaa u muuqda sida la sheegay mid la soo miinguuriyay taa oo kaga dhigan in aqalka sare iyo aqalka hoose ay yihiin hab dhaqan ay ku dhisan yihiin dawlado reer galbeed ah haddaba shacabka Muqdisho maxay ka fahansan yihiin aqalka sare iyo aqalka hoose waa kuwan qaar kamid ah shacabka Muqdisho oo aan la dhex qaadnay mikrofoonka muuqaal baahiyaha telefishinka STN waxaan ka aaminsanahay aqalka sare waxa loogu tala galay marka hore horta waxa waa aqalka sare sanadkan America kala iskale waa dadka ka tagay siyaasadda oo beeshinka ah baa talada markii ay heen jireen caqabadii timaaday in dib loogu noqdo oo wax laga weydiiyo ayaa loogu tala galay haddana waxaan arkaynaa in hogaamiyo kooxyadii iyo waxa ay ayaguna ka soo qayb galeen laakiin majority waa fikir muhiim ah oo ku soo koray dalka inta muhiim haddii ay su'aashadan si dhab ah u taxliiliyo marka miyahu annagu aqal sare ma aan lahayn asali meeshan waxa hadda ku siyaadiye naabus laga soo saari karaa waa aqalka sare wax mushkiladana ma laha waa wax ay Soomaalidu isla qaadaan wax dhiba marka anigu uma waxaan ka aaminsanahay wax wanaagsan anigu hooyo Soomaaliyeed aqalka sare waxaan ku fiican yahay isku fiican aan xildhibaanada hadda la doortay ugu fiican ma anfacayaan horaba u taqaan aqalka sare Soomaaliya ayaa haatan caga gashatay xilli kala guur ah iyadoo shacabka Soomaaliyeed dhag iyo indha ay u raaricinayaan xilliga ay qabsoomi doonto doorashada madaxweynaha iyo kan afayeenada labada aqal ee baarlamaanka aqalka sare iyo kan hoose Cabduqaadir Maxamed Cabdullaahi Qoslaaye wararka STN Muqdisho